mid ka mid ah sheekooyinka xanuunka leh ee la baahiyey waxaa ka mid ah haniyar hawajey waa la dile haddana hawajey joojileen waa la soo qabtay haa waa dhacdo xanuun leh waxaa la dilay hooyadiis Nimco Xasan Cali iyo gabar ay ka iibsanaysa roodhi oo lagu magacaabi jiray Dahabo Calasow Axmed labadaba waxaa la ii sheegay inay lahaayeen sid uur Abshir Cabdullaahi Basi waxa uu u dilay labada maamo ee sid kale farqi lacageed oo ah 1,000 shilin Soomaali ah waxa ay bixisay maama Dahabo 2,000 oo shilin laakiin muran ka dhashay ay maama Caaisha ogolaatay inay dhiibto 1,000 shilin ee askariga ku doodayo maadaama uu 3,000 oo shilin ka rabay waxa uu saabaal uga dhigay xabad inuu isku dhex mariyo labada maamo hadda maaha waa 8 sano ka hor May 2012 dhacdaasi waxay ka dhacday suuqa Kaaraan ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Xasan Maxamuud Xasan wixii intaasi ka dambeeyay waxa uu ku wareegi jiray xarumaha dawladda si uu u helo cadaalad fariinta uu la wadaago warbaahinta gaarka ah waxa uu wakiisha aabihiis Maxamuud Xasan meel kasta waa tagay qof wax iga qabayso waa waay sharcigan waa iska sugay alxamdulillah qof maalinteeda leedahay maanta waa hel alxamdulillah aniga ilmiga wada qanacsanahay maanta dawladda naga farxisay alxamdulillah ilaahay khayr ha siiyo waxay ku timid maadaama ilmiga leega dilay xasan aan qadka gashtay qadkina xasan laga helay ciidamada ka war heleen ciidamada soo qabtay markuu dhahay qadka finaad guud 3,000 oo u dilay ninkin waa jooga soo dhahay waa ku jirta dawladda u dhiibanay dawladda maadaama u dhiibanay uga casirin hawsheeda waajibkeeda gudateen booliiskana qaar la siiyo TV-gan ka wargelinay meel walbaan ka wargelinay markii hore waxaan ciidanka nabadgelyo ayaan heleen alxamdulillah iyaga wax noo qabteen maama Xaawa Axmed Maxamuud oo ah hooyo Dahabo maamadeed waxa ay muddo la amakaagsaneed dhimashada gabadheeda oo ay u heli weyday ciidan iyo sharci u hiiliyo waxayse booliiska gobolka Banaadir kaga mahad celisay in 8 sano kadib cawashadeeda sharci ay u fuliyaan waa anigu dhibanan ahay muddo 8 sano laga joogaa igaar qorawato askari waa la leeyo gabadhiga dil suuqaani iiga shaqeeysay iiga xamaali jirtay bariyo u hanjabay waa galgaleeyo yiri 1,000 shilin ay u dhimatay barigo saas u hanjabay barigii ku xigto ida saliiq loo dhiig la keenay mayda wax ka socdo maaragtay Allah ka sabar siiraan ma aanan arag wiilkii meelahaas badaneen la dadhoon hadda muggi hore waa bakaara lagu dilaalnaa ma noolo waa iska joogna ilaahayna isaga daranay haddana ilaahay cadaaladiisu ma dheeree waxa la yiri wiilkii baa la soo qabtay dawladda sharafta booliiska sharafta leh aa soo qabtay Cabdullaahi Calasow Axmed oo Dahabo la dhashay kana shaqeysto mihnada iibinta roodhiga isla goobtii walaashiis lagu dilay ayaa nala wadaagaya sida ay ku baxday walaashiis maalintaas gabadhaan ay la dhalatay gabadha la dilay daadiga wareeyay iska abayn meeshan ayaa lagu dilay rootigeeda gadayso ida gabar macnaha wax gadaysa labadaba meeshan ay ku dhinteen ana isku toosiyay inooga timiyay aba maaragtay aba yaraatay Allah u naxariista hataa macnaha gabadha Allah u naxariista hataa ma jirto aniga taagnaa meesha maqaayadaan jiray maqaayada hadaan ka imid gabadhan iyo gabadhii wax gadaysa iyagoo meesha yaalaan u midii la dhalatay waa qaatay midii kale saldhigankii Xasan Maxamuud Xasan waxa uu muddo ku meereysan jiray xarumaha booliiska gobolka waxaase sheeda aragga ee CCTV camera ka daawanayay taliye ku xigeenka qaybta booliiska gobolka gaashaanle sare Maxamuud Cabduqaadir Xaaji Jeego oo si gaar ah isaga xil saaray askarigan booliiska ah ee cabashadiisa ay soo gaarsiiyeen dadka Soomaaliyeed kadib muuqaalo lagu baahiyay baraha xiriirka bulshada iyo waliba dhibana Xasan Maxamuud Xasan oo si gaar ah arrintiisa ugu sheegtay dhamma Sadiiq Aadan Cali
afhayeenka booliiska oo si gaar ah ula hadlay warbaahinta qaranka ayaa inooga waramaya sida ay u maareeyeen qaybta booliiska gobolka banaadir kiiskan iyo halka uu ku dambeeyay eedeysana Abshir Cabdullaahi Basi. maanta oo taariikhdu tahay 27 bishii Juun 2020 waxaa noo suurto gashay in cadaaladda la horgeeyo askari lagu magacaabo Abshir Cabdullaahi Basi oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. askarigaas oo 3 bishii May 2012 dil u geystay 2 marxuum dumar ah oo Soomaaliyeed oo lagu kala magacaabo Nimco Xasan Cali iyo Dahabo Cali Sow Ahmed degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. askarigaas ayaa baaris dheer iyo dabagal kadib waxay taliska booliiska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed gacanta ku soo dhigeen kadib ashtaka ka timid wiil ay dhashay marxuumad Nimco Xasan Cali oo lagu magacaabo Xasan Maxamuud Xasan oo ashtaka dacwo ah u soo gudbiyay taliska qaybta guud. sida aad ku aragteen baraha bulshada wiilkaas yar wuxuu ka cabanayay in askari booliiska ah uu dilo hooyadiis kadib baaris iyo dabagal dheer kadib ayay soo cadaatay in askariga falka lagu eedeynayo uu saxaa. askarigii cadaalad waa la qabtay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa qabtay gacanta lagu dhigay wuxuu ka soo hor muuqan doonaa maxkamadda awoodda u leh. waxaa xusid mudan in kiiskan uu dhacay 3 bishii May 2012 oo qiyaastii ah 8 sano ka hor iyadoo ehelkii iyo qaraabadii marxuumiintaas ay uga mahad celiyeen taliska booliiska qaybta guud ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed isla markaana ay cadeeyeen inay hadda cadaalad u heleen in dambiilihii maxkamad uu ka soo hor muuqdo. waxaan rabaa in digniin gaarsiiyo askarigaas iyo ciidamada kale ee ay ka dhacaan falalka noocaas oo kaleeta ama wixii la halmaala ee dil u geysta muwaadin Soomaaliyeed ama qof ku nool geyga Soomaaliya in uu maalin cadaalad dhibin doono.